dhowr sano ayuu qaatay dhismaha masjidkan oo ah kan ugu weyn degmada Galnisoor ee gobolka Galgaduud waxaana ku baxay ku dhawaad 400,000 oo dollar oo si isxilqaaniba ah iskaga soo aruuriyeen dadka degmadan oo ay horkacayaan culimada adduunku mashaaiikh kala duwan iyo maamulka degmada ayaa goobjoog ka ahaa munaasabada lagu daafurayay masjidkan waxaana culimadu ay ka sheekeeyeen marxaladihii laga soo maray dhismaha masjidkan kana dhowrtid waxa ay ku halaagsanayso maxaa yeelay nafta haddaad tiraahdo adduunka u raaxee oo wax alla waxay rabta laqsi way halaagsanaysaa aakhirana way halaagsanaysaa haddii laakiin nafta aad xabistid aakhiro guul bay gaaraysaa waxa khayrka marka allahna waafajiyo war badan ka sii sheekayn mayo culimada wacdigeeda iyo waaneeda allah noo aqbalo wixii iga dambeeya waa duco iyo war yaro kooban buu noqon doonaa kaliya waxaan soo sheegi doonaa oo ka sharqaminaya masjidka hawlihii uu soo maray iyo waxa hadda uu mari doono intaasaan hadda taabanaya ay khiyaaray masjidkan bilowgiisii hore wuxuu ahaa cariish ayuu ahaa saan jecelnahay anigu ma aanan dhalan markii la dhisay ka bacdina wuxuu noqday midkii dadka badankiisu soo gaaray oo 10 lagu dhuftay ahaa ka bacdina midkii wuxuu noqday 10 sano muddo laga joogo la soo dhisay oo 14 balciisu ahaa ka bacdi markuu naqaadi waaday ayaa tala deegaanka iyo culimada ka soo baxday midkan ilaahay nagu ilhaamiyay waxaana ku baxay qarash tiro badan wuxuu marayaa sida hadda qoraaga mukhtaar uu sheegay 324,000 ayaa masaajidka ku baxday 9,000 oo dollar waa lagu leeyahay mas'uulihii iyo weesaqaadkina way u dhiman yihiin akhyaarta marka hadda joogta iyo kuwa maqanba waxaan u rajaynaynaa qarashka inta leg meesha ku baxay waxaana u dhiman yihiin inaan masaajidka intaas lagu tiiriyo tacbeel aan la dayicin iyo kuwa kale oo la midka ee lagu cibaadeysto intaas waxaan ku sii darayaa akhyaarta kale odayaasha iyo culimada ayaa ducayn doona warkuna waa soo gabagababi doona kaliya waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sida tawfiiqda inuu waafajiyo qarashka noocaas marka waxa ka qayb galay dadka deegaanka degan iyo dadka gobolka degan iyo dibadda markii la yiraahdo dhamaantood sida Yurub iyo Mareykan iyo Nairobi kulli masaajidka waxbay ka dhiseen lacagta noocaas ayaana ku baxday adigu markaas 324,000 baa ku baxday 9,000 oo dollar waa la leeyahay adeegiisii wuu dhiman yahay waliba markii hadda masjidkii jaamicaha aan ku tukan jirnay oo naqaadi waaday ayaan midkaan u furnay asagoo qabyo ah oo aan noo dhammaan ayaa waxaa dantu nagu kaliftay inaan midkaan qabyada ku furno marka intaasaan warkay ku soo gabagabaynayaa intii xafladdan ka soo qayb gashay iyo intii maalan baa joogtay dhammaantood waxaan uga mahadcelinaynaa ilaahay inuu tawfiiq siiyo xafladuna caaway waxay ka dhici doontaa masjidka ayay ka dhici doontaa soo jeedku waa noo halkan insha Allah taala saasaa lagu talagalayaa ilaa waagu nooga baryo halkana xafladu nooga soconaysaa qof kasta masjidka i'tikaafkiisa niyeysto ayadoo ajar iyo khayr ka helaya soo jeedka ayuu ilaahay maalan ba ku gaaraya qalbigiisana ha nadiifiyo intaasaan ku soo gabagabaynayaa oo sabuul kastaana uu xambaarsan yahay 100 xabo kaas buu ku matalan yahay qofkii ilaahay daacadiisa wax ku bixiyaahi matashaasuu leeyahay nafaqadiisu matashaasay leedahay macnahaasi wuxuu ku sheegayaa haddii aad $1 oo kale aad jidka ilaahay iyo masaajidda aad ku bixisid in ay $1 uu noqonayo $700 inta u yar waa sidaas baayada laga qaadanaya $1 oo masaajidkaas aad ku bixisay iyo ilaahay daacadiisa wuxuu noqonayaa $700 matashu waa sidaas weey wallahu yudaa'ifu liman yashaa bali ilaahay wuxuu si laabahayaa qofkii uu doono akthara min dalika inta wax ka badan waxa kaloo suurtagal ah $1 oo ilaahay daacadiisa iyo masjidkiisa ku bixisay inuu 700 ka sii bato ayaa suurtagal hadii ilaahay kula doono ayadoo la ictibaarinayo qalbigaaga
iyo sida aa wax u bixisay iyo kalsoonida iyo ikhlaaska aa ku bixisay ayadoo ilaahay ictibaarinayo oo la dhowrahayo in lagu sii ziyaadiyo oo halkii doolar uu 700 ka sii bataa suurtagala wallahu waasi'un caliim bali ilaahay ay waasi' weeye fadligiisu oo inuu intaasoo kala bixiyo ilaahay awoodiisa iyo intaba uu leeyahay waana waasi' fadligiisu waana caliim oo ilaahay qof walba uu og yahay habka uu wax ula baxay waa ka amal marinaya waxa kaloo ilaahay yiri aayadda ka dambaysa يا أيها الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والأذى ورددوا ورد إلهي الرميسو صدقاتك إنها كبرننا من يدبها كبرننا كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر أدين كل مدأة كي مالكي صدقك استسكي سأبحيي صدح داس قف بوا حيدانيين هداد من شيغتو تانو waxaasan la baxay waxaasan bixi waxaaga waa ka halaabeen ilaahay waa ku ogyahay waxa bixisay sheega ka dayso hada caamigu waa ka daba tagay wuxuu yahay ilaahu ma sheegana waa ka sheekay laakiin sheekada lafteeda aan la rabin ina sheegtay baa lafteeda ka halaynaysa iyagu warkaasi ka daba geeyaan oo xoogaa ay ka soo reebay tagayaan laakiin wax soo hari mahaya ma hada ka sheekaysay صدقاتكيسا من iyo adiha sadaqaadkiina ku burinina qofku waxa raba sadaqada uu la baxay ilaahay baa ku inuu la baxaana hada laabkaas iyo ajarkaas ay leedahay laakiin inuu san man iyo aday iskaga burin waxa kale oo la mid ah oo sadaqadu ay ku buraysaa haduu qofku istus u bixiyo qof hebel baa wax bixiyo adna istus oo wax bixi haduu sidaa u bixiyana wixiisu meel qabad ma aha مثل با إلهي كبحيدو كمثل صفوان عليه ترابا فأسابه وابل فتركه سلدا وحي لما تالتهي قف كاس منغا صدقادي سو غيستي امسه رئاء الناس كوح بخيي وقف وحو لما تاليهي waxa lagu mathalay dhagax sisib ah oo ciidi kor saaran tahay oo roob xoog leh qabtay meeshii maxaa ku harahaya waxba ku hari mahaya yaani qofkaasi waxba ka heli maayo wuxuu la baxay haduu saddexaas mid ka mid yahay man iyo ade iyo ri'aa naas haduu ka galo waxa lagu mataalay wixii uu bixiyay dhagax sisibaho ciidi inta kor saarnayd madar xoog leh uu ku dhacay oo uusan waxba ku reebin wuxuu ugu jecel yahay masaajida wuxuuna ilaahay ugu nacab yahay meelaha suuqyaalka ah oo waxyaalaha dambiga ah xunxun lagu hayo sidaas marka qofkiiba ilaahay masjidka u soo diray oo meeshaas khayrka ilaahay uu soo waafajiyay ilaahay wuxuu u galay nicmo weyn sida la sheegay masana munaasabadu waxay kala ka kooban tahay oo ku dhex jirta sheekh weyn oo kamida dadka saalixiinta ah ilaahay agtiisana maqaamka ku leh xuskiisii iyo ziyaaradiisii ayadana dadka saalixiinta markii la xusahayo ilaahay wuxuu soo dejinayaa raxmad waatuu oranahay Sufyaan ibn Uyayna inda dhikri saalihiina tanzilu rahma dadka saalixiinta markii la xusahayo ilaahay naxariistiisa soo degisa subhanahu markaasa macruuful karkh suufigi la oran jiray la weydiiyo waxa la yiri wa inda dhikrillaahi maada yanzil hadii ilaahay la xusahayana maxaa soo degahaya baa liid faqoshi alayhi wa lamir daboolay sheekhaas su'aasha asweerankeeda iyo ajabteeda bacda mudda markuu soo miiraabay ayuu wuxuu yiri inda dhikrillaah tanzilu dumaaniina ilaahay markii la xuso waxa soo degisa dumaaniino ala bi dhikrillaahi tadma'innul qulub marka munaasabadu taasna way ku dhex jirtaa waxa kale oo jira meesha cilmiga lagu akhrinayo oo diinka lagu faa'iideynayo majliskaasi qofkii fariista wuxuu helayaa wax weyn waxa la sheegaa 70 majlis oo min majaalis lagwi 70 meelood oo meelaha sheekada iska maalayacniga lagu hayo qofku dambigii uu ka soo qaaday ilaahay inuu uga dhaafahayo haduu soo fariisto majlis oo min majaalis ilmi kamid ah
meelaha cilmiga lagu hayo oo culummadu ay fadhido caalimkii weynaa ee taabiciga ahaa ee lagu magacaabi jiray Kacabul Axbaar baa waxaa ka mid ah maqaalooyinkiisii low anna majlis al-culamaa'i badal lin-naasi laqtatalu calayhi xataa yadruka kullu dhii suuqin suuqah wa kullu dhii imaaratin imaaratah wuxuu oran jiray ninkaas caalimka ah oo taabiciga ahi xataa saxaabada gobolkood baa ka faa'iideysan jiray ninkaas maxaa yeelay diinihii hore ayuu aad iyo aad u yaqaanay laakiin nasiib uma gelin intii nabiga naw noolaa calayhi salaatu wasalaam inuu soo islaamo wuuna joogi jiray nasiibkiisa iyo calafkiisa saas noqday ninkaasaa maqaalooyinkiisii waxaa ka mid ahaa meesha culummadu fadhiyaan oo majliska culummada ah oo diinka lagu hayo faa'iidadeeda iyo fadligeeda haddii ay dadku ogaan lahaayeen waa isku dili lahaayeen bal iska dhaaf inay ka soo daahaan oo ka soo ta'akhuraane waa isku dili lahaayeenoo waa ku soo kala hormari lahaayeen xataa yadruka kullu dhii suuqin suuqah ilaa qofka suuqleydaha uu suuqiisa ka soo tago wa kullu dhii imaaratin imaaratah qofka madaxdaana uu madaxtinimadiisii iyo xafiisyaalkiisii intuu ka soo cararo meeshaas uu soo cararo waxa weeye faa'iidadaas qofkay u daahirto wuxuu ogaan lahaa wax la sinan oo lala sini kara inaysan jirinin marka maqaamkaasi intaasoo munaasabood ayuu iska korsan yahay munaasabadahaas badan ayaa lagu soo kulmiyey maantay ilaahay baa uga mahadinaynaa marka ilaah naga soo qaybgeliyey oo noo qadaray inaan nimaanno ilaahayna ha noogu dembi dhaafo raxmaddiisa iyo ridihiisa weynna allaha nagu siiyo intaas bacdigeed waxaa moodaa in la kaaftoomay shiiqa maqaaladiisii wacdigiisii cajabta lahaa xikmadda dheeraa in lagu kaaftoomay luqmaanulxakiim nin xikmad badan buu ahaa oo dadka waaniyo wacdiya markii nebiyaasha ilaahay nebi ka mida ilaahay uu soo bixiyey baa waxaa la yidhi waanadii iyo wacdigii waa u kaadiyey haddii la weyddiiyey oo la yidhi sababta ah wacdigii u joojisay muxuu yahayna wuxuu yidhi awalaa aktafii idaa kufiitu haddii la ikaafiyey maxaa u kaaftoomi waayey marka dadkaa waxay iska sii jecel yihiin uun warka in la iska sii faraq dheerayo la iska sii idnaabiyo laakiin uun hadda intii shaykhu noo sheegay kifaaya ku sugan baa la odhan karaa nebigeenna wuxuu odhanayaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi lan yashbaca almu'minu alkhayr xataa yakuuna muntahaahu aljanna qofka mu'minka ahi khayrka ka dharki mahayo ilaa dhammaadkiisa iyo yoolkiisa uu janno ka noqdo sidaasaa marka dadku hadda waxayba sii rabaanba maadaama masjidka fadligiisii iyo fadhiga la fadhiyo khayrkiisii la sheegay inay xoogaa sii fadhiyaan ayay sii rabaan markaas baa waxaa laabudda ah inuun warkii xoogaa la sii wado ee xikmad ka dambaysa intii shaykhu sheegay la sheegi mahayo marka fadaa'isha masjidka iyo wixii ku saabsan shiikhaa sheegay waxaa rabaa inaad kelimaad yaryar ka taabto dadka waxaa looga baahan yahay masjidka loo dhisay maadaama masjidkan kharash badan lagu bixiyey sanawaad badanna la dhisahayey baaxaddaas iyo weynankaas loo yeelay sidaas loo sharfiyey dadka waxaa looga baahan yahay nasiibka iyo calafka u yeeshay magaaladan in masjidkan cajabta leh looga dhex dhiso way yar tahay tuulooyinka iyo gobolladan hadda aad joogno masjidkan oo kale meel uu ka dhisan yahay caasimadaha iyo maahane waa yar tahay markaas baa dadka waxaa laga rabaa masjidka ilaahay inay soo camiraan masjidka dadka loo dhisay waa dadka magaaladan deggan waxaa la rabaa masjidka waxaa dhex yaalla dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa loo soo doonanahayaa waa wixii nebi moxamed lagala haray salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waa ogsoontihiin abaa hurayra saxaabigii la odhan jiray maalin maalmaha ka mida wuxuu ka dhex qayliyey suuqa dadkii suuqleydaha buu ku qayliyey wuxuuna ku yidhi wardadow waxaa dhooman tihiin suuqan dhaxalkii nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu qaybsanahayaa masjidka dadkii waa soo kala ordeen suuqii waa laga soo cararay ayadoo la isleeyahay nebiga kunuus iyo waxyaalo jawaahir iyo alaab uu ka dhintay oo meesha ku xamaalneedaa la soo bixiyey ayadoo qof kasta uu is odhanahayo
maxaa yeelay adduunyada waa loo orod badan yahay sida adduunyada loogu didaalana aakhirada dadku uguma didaalaan ilaa man casamahullah qofka ilaahay ilaaliyey maahane haddii masjidkii la yimid oo dadkii masjidkii yimaadeen waxay ugu yimaadeen wixii masjid lagu arki jiray qof salaad tukanahaya qof ictikaafahaya qof qur'aan akhrisanahaya dad khayr iyo diin isku meeranahaya waa la laabtay waxaa la yidhi wixii aan noo sheegtay iyo dhaxalkii xoolihii waa sida qalbigooda dhacday ee asagu ma odhan xoolaa la qaybsan aaway baa layidhi wixii maxaa aragteen buu yidhi waxay u sheegeen wixii ay arkeen iyo cibaadadii masjidka lagu hayey taas baa nebi moxamed laga dhaxlay wiyi salawaatullaahi wasalaamu calayh diinkaa nebi moxamed laga dhaxlay diinkana masjidka lagu qaybiyaa nebi moxamed maa lagama dhaxlin dahab iyo diinaar iyo danaaniir iyo daraahim lagama dhaxlin diintaa laga dhaxlay faman akhadahaa akhada bixadin waafir qofkii diinkaas wax ka qaataana dheef weyn helay qaybo ay ka mid yihiin suuriyaasha iyo qalab kale ayaa weli ka dhiman masjidkan waxaana culimmadu ay dalbadeen in laga gacan siiyo